waa qoys tan yar ah oo ay hayso xaalad nololeed oo aad u liidata. alle ha u naxariistay Nimco Ibraahim oo ahayd qofka kaliya ee qoyskan gacanta ku haysay una dhaqdhaqaaqi jirtay ayaa magaalada Burco lagu dilay waxaana meydkeedu maalintii afraad ku jira talaagada cisbitaalka weyn ee magaalada Burco. laba kamid ah qoyskan ayaa xanuunsanaya waxayna u baahan yihiin gurmasho. guriga ay degan yihiin qoyskan tan yarta ah oo aan booqday ayaan ugu horeynba waxaan kula kulmay Deeqa Ibraahim oo ay walaal ahaayeen Nimco waxayna iiga warantay xaaladeeda iyadoona ii sheegtay inaanay qayb ka mid ah jidhkeedu shaqayn walaalkeedna uu hayo xanuun maskaxda ahi. Nimco maxay ku hay walaal bay hay iyada gacantay way xanuunaan ilaahay bay xanuun qeykeenay ma shaqayn karo iyada lagu shaqo jirto gacanta lagu haysay iyada gacanta lagu haysay afar iyada lagu dilay ka shaqaysan jirto tan baaralayska ana habar yar baan ahay inanka yar ee xanuunsanayana ayeeyaan oo inan walaashay dhashay baa dhashay labada qof ee midna xanuunsanayo midna baaralayska yahay maxuumada dhimatay ayaa gacanta ku haysay hadii ay gacanta ku haysayna waxba uma haynin afriyaad oo lagu dhex dilay ayay u raaci jirtay wixii muslimku siiyay ilaahay muslimka ka siiyana halkaas ugu haysay waxantiya oo kale oo leedayna ma jiro wax allaale waxantiya qoryaha yar yar ee halka ka taagan mooyee male baydna male tan dhimatayna iyada haysado rabbi wuxuu keenay bay ahayd waa sida wixii gacalka iyo populationka iyo muslimku uu u qaban karayo muslimiinta ilaahay wixii ay u qaban karayo waa dadka ay ku baxayso weeyo nin waliba wixii uu hidin karayo marka waa sida iyo si alle ayaan ku daayay. Shun Cabdi waa hooyada dhashay carruurtani waxayna ka dayrisay xaaladda ay ku sugan yihiin waxayna ii sheegtay inaanay lahayn hoygan ay ku jiraan oo ay ka cabsi qabto in laga saaro. waxaantii u xareysanay fartaariyada aragtana waqtiyay haay wixii ilaahay siiyay wax islaamku u keeno ee meesha ku cuni jira halkan aan deganahay reer baa antiin taayaro qoryo ah ayay inantaas haysatay dhimata tan bugtaana ay ku hoosaysay iyadunba ama muslim waxa uga soo qaado ama kuwa waxa uga shafto ama de muslimka soo bariyay gacanta ku haysay gacanta waan kula hayay markii hore waan yara socdaalo de nafta ku fadhiisan maysa dhulkaasan yara qabto dibadna markan ay dhimatay geeridan habeen horaan soo riday laagada ku jirtaa noloma keenin wixii dilayna lama hayo ilaahay baa amar leh waxaan ka codsanayaa wixii gargaar la qaban karo oo bayd u horeeyo iyo meel aan fadhiista ayaan ka codsanayaa bayd iyo meel aan dugo ilaahay baa anfacada bixi qof islaam wax ku keenay fadhiga ka horeeyay wixii ilaahay iga siiyay ee kale igu soo kordhinaya mahad iyo saruur baan hooyo waan u ducaynaya alla igu daro ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.